nabadda odayaal iyo dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha oo aad u xiiso badan maanta. Barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaarihii xiisaha badnaa ee Yurub Liiga, kuwaasi oo xalay ka dhacay garoomada Yurub. Sidoo kale waxaynu ku soo qaadan doonaa ciyaartii xiisaha badnayd ee dhexmartay Atlanta iyo Villarreal, kana tirsaneyd lugtii ugu dambeysay ee horyaalka kooxaha Yurub, taasi oo barafku baajiyay habeenkii Arbacada. ugu horreynba kooxda Celtic ee reer Scottish ayaa 3-2 ku jiiday kooxda reer Spain ee Real Betis, halka kooxda Turkiga ee Galatasaray iyo Lazio ay isku agciireen Eber isla dhaafi waayeen. balse kooxda Talyaaniga ee Napoli ayaa kooxda Leicester ku martay 2-3, iyadoo hore iyo gadaalba ugu martay garoonkeeda koonfurta Talyaaniga ee Maradona Stadium. kooxaha Lyon iyo PSV ayaa iyaguna si dhaaf waayay 1 gool ay la soo shirtageen. kooxda galbeedka Faransiiska ee Marseille ayaa iyaduna kooxda barafayda Ruushka ee Lokomotiv Moscow ku suuxisay 1-0. kooxda West Ham ee baryahan dambe calankeedu taagnaa iyo duqii David Moyes ee madaxa cadda ayaa iyagana waxaa lagu dardaray garoonkooda London Stadium ee ku yaala magaalada London, waxaana dabka ka damisay kooxda Dynamo Zagreb ee dalkaasi Croatia. barnaamijkan ciyaaraha ee maanta ayaa halkaasi inoogu dhan, kan oo kale intaan isugu iman doono. waxaa Xasan Bare Ducaalo idin leh nabaday.